qaar ka mid ah dowladaha Carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda Mareykanka oo ay wada gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. dowladda boqortooyada Bahrain ayaa soo dhaweysay heshiiska ay wada gaareen Imaaraadka iyo Israa'iil iyadoo oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda. waxaan rajaynaynaa dadaalo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xal waara iyo cadaalad si loo helo Falastiin oo dowlad ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Bahrain. madaxweynaha dowladda Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa dhankiisa ka sheegay in uu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geesoodka oo ay kala saxiixdeen Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka. Asiisiga dalkani Masar ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray heshiiska waa mid dhab ah u xaaraya in Israa'iil ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer Falastiin gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka Gaza. sidoo kale madaxweyne Asiisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta ayaa bogaadiyay heshiiska isagoo oo ku tilmaamay mid taariikhi ah. dowladda Jordan oo war ka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday Israa'iil iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayso balse waa in Israa'iil ay joojiso baa lagu yiri warka dowladda Jordan ka soo baxay dhammaan talaabooyinka sharci darrada ah ee ka dhanka ah dhulka reer Falastiin. laakiin dhanka kale maamulka Falastiin ayaa sheegay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid gabi ahaanba ay ku gacan saareen isla markaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakeysan ee Qudus. maamulka Falastiin oo shir degdeg ah yeeshay ayuu madaxweyne Maxamuud Cabbaas ugu baaqay dowladaha ku jira jaamacadda Carabta in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. sidoo kale xarakaadka islaamiga ee Falastiin sida Xamaas iyo Islaamiga Jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi ayagoo ku sifeeyay in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyadda reer Falastiin. haddaba Dr. Hussein Adam Yaasiin oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka Carabta iyo qadiyadda reer Falastiin. heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda Falastiin iyo dadyoga muslimiinta qulubta uga taagneyd. wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa in ay dowladaha Carbeed oo iminkaba xiriir hoose kala dhaxeeyo kayaanka Sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda Sacuudiga, Masaarida iyo dowladaha kale oo khaliijka ah oo iminkaba xiriir la leh hoose inay xiriirkooda saytooyo kor u soo wada qaadaan oo muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan deganuglaan hayo safqatul qarnigii uu in badan عالم الإسلامي والعالم العربي أي أنت بكوذا جابنا يرى أهيد أو عن الأوقات تبين ومدة فلسطين أو وذي ترام إن لقاته أرنكا أي ما يفسد تجينسا مركا وأنا أي أندرو أي مركا كوها ستي عالم العربي خاصة خليج العرب ويوفرين متقنا إردو وعاد مركو روا عن حرنينا جلعنا وسيهو سلوه دي marka laga soo tago dalalka Carabta dowladaha Iiraan iyo Turkiga ayaa muujiyay falcelis ay ku diidan yihiin heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. la taliyaha madaxweynaha Turkiga Dr. Yaasiin Akhdaya ayaa xaqiijiyay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ee lagu dhisayo xiriir rasmi ah in uu yahay mid xadgudub ku ah hindisaha nabadda ee wadamada Carabta iyo xuquuqda dadka reer Falastiin. waana heshiis aan macno lahayn oo sharci darro ah ayuu yiri la taliyaha madaxweyne Erdogan. dowladda Iiraan ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska Khamiistii lagu dhawaaqay ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid halis ah oo sharaf darro ah. dowladaha Mareykanka, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in dowladda Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta si rasmi ah u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dowladda Mareykanka. Hussein Sahnuni, VOA Qahira. Direct from